كسر هذا ما أنتوا حرنا أنا أسبربر دقنا عاصمة الصومالية أو مقدش عاصمة الصومال لأنه حرقيسة فضلا جنا كسر دو مركور سبسكرايب صاحب من ده أدي هذا كمان علنا وحرنا أنا دين عول بسكون بربر دقنا عاصمة الصومالية مقدش عاصمة الصومال لأنه حرقيسة دون والبقى أمنية نقالها محلها وكله هرمركا وينانت بحد قروح ذا وحبرشة dhinac walba inaan isku barbardhignaa labada caasimadood oo Hargeysa iyo Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay xifaaltan uu ka dhaxeeyay baarnaan inaan isbarbardhigno dhanka dhaqaalaha aniga ahaan dhanka dhaqaalaha Muqdisho iyo Hargeysa aniga fikirkayga way saxsan anigu aaminsanahay adigna taasa aaminsan tahay oo dhigi kartaa dhanka dhaqaalaha boqolkiiba waxa dhaqaale fiican magaalada Muqdisho waa magaalo sababta uu dhaqaale fiican tahay xumaalo aad u weyn waa magaalo aad u baaxad weyn waa magaalo كفريهن انتاسو دقاله انتاسو دكدي ايروبوركي wax xarumihiis dawladda kuwa caalamiga oolkooda furan ururada dhamaan ay kooda furan yihiin dhanka dhaqaalaha number 1 waxa haysata Muqdisho iyo Hargeysa waxa haysata Muqdisho haysata dhanka dhaqaalaha anigu saaxiibayaal fikirkay waxa siiyay Muqdisho siiyay iyada number 1 ah aw imaan dhinaca horumarka haday tahay maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho inkastoo hadda horumarka maalmahan ugu dambeeyay sanadan bilahan ugu dambeeyay Muqdisho aad u soo horumarayso laakiin xiliyo waxa ogeyn aad iyo aad ugu jiftaba ogeyn dhanka horumarka boqol Hargeysa laguma gaaro horumarka ka socda Hargeysa waa magaalo horumartay aan la gaari karin Muqdisho haday soo kabsanaysa haday horumarkii wada haday jidkii Hargeysa ay 10 sano 15 sano 20 sano ka hor ay Hargeysa qaaday ee hadda rabtaa inay Muqdisho qaado marka Hargeysa horumarka ka socda waa feeri saaid weey marka Muqdisho laakiin iyada horumarka aad iyo aad ugu hooseysa laakiin hadda sanada dambe way kor isku soo qaaday waxaana xagga ku siiyay credit waxa ku siiyay Hargeysa horumarka ka socda waxa siiyay Hargeysa aniga fikirkay saaxiibay aan waa ila qabi kartaa ama adiga fikirkaaga ala xor ah dhanka kale hadii aan ka eegno amniga hadii aan ka fiirno oo maanta amniga wax ka muhiimsan aysan jirin waxa boqol bilaa hadal ah la siinayaa magaalada Hargeysa caasimada Hargeysa ayada taa bilaa hadal lagu siinayaa sababtoo xamar waa ognahay waxa ka socda xamar waa ognahay qaxa ka socda xamar waa ognahay dagaalka ka socda xamar waa ognahay in uu ka socdo amni xumada ay ka jirto nabadgelyo xumada ay ka jirto waa ognahay Hargeysa taa horta in nabadgelyadeeda ay boqolaal sano ka hor ay u soo jiiftay ay u soo dadaashay waa ognahay marka taas laguma gaarayo Hargeysa inay number 1 u tahay magaalooyinka Muqdisho kaliya uma baahaba number 1 magaalo Soomaali ay degto number 1 ba u tahay dhanka amniga Hargeysa taana iyada dacid ku haysata male hadii taana waxa si Hargeysa hadii marka dhinaca kale ka fiirno saaxiibayaal dhinaca kale ka fiirno shaqada dhalinyarta shaqada waxa aaminsanahay dhanka shaqada in boqolkiiba boqol dhanka shaqada iyo lacagta ay ku horumarsan tahay ama dhankaas ay ku fiican tahay Muqdisho sababtoo Muqdisho intaas milyan oo ummada ku nool shaqadana dhalinyartuna wax xirwaan bay qaban karaan maanta hadii ay miis qudaar moos ay soo dhigtaan ama miis qudaar ay qaataan dhaqsi ka dhamaanaysa oo population-keeda badan shaqadan xagaas aad ugu badan tahay maalmo dhaweed waxa maqlay dhalinyarta Hargeysa aad iyo aad u tahriibaan oo tahriibkeeda badan oo Hargeysa saas dadku shaqo uga mehelaan waa tahriibaan dhalinyarteedu badan ah laakiin Muqdisho inkastoo ay tahriibaan laakiin saaxiibayaal maanta hadaa Muqdisho joogo shaqadii aan ka shaqeyn karo lacag waa ka helayaa aaminsanahay shaqo walba iyo furan oo aan qaban karo maanta miis hadaan saarto cambe iyo qudaar hadaan saarto 4 saac ugu gaarmayso intuu isaarnaan hore laga dhameysanayaa marka dhanka shaqada iyo dhinac walba oo shaqo la xiriirta Muqdisho ku horumarsan oo xagga waxa siiyay Muqdisho siiyay adigana saaxiibaga fikir doonaan karta okay waxa uu wareegnaa dhanka baaxadda dhanka magaalada weyn isku haystaan waa ku tartamay maalmahan boqolkiiba boqol codkay si fiican dhageysto waxa magaalo weyn Muqdisho weyn caasimada Soomaaliya Muqdisho aad iyo aad u weyn tahay oo waa magaalo dhameystiran oo aad u weyn Hargeysa iyadu ma weynaantu waa looga haystaa Muqdisho uga haysata taan waxa si Muqdisho siiyay quruxda Hargeysa iyo Muqdisho
يا قروح بدن أستيك هذا الملح وحا قروح بدن مقالة هرقيسة شو أقولنا حيدتك وحي كعيان تنقض يحاول إليهم كعيان لك هرقيسة لأنك قروح ذا ولقوم جارو آدي بقروح بدن تاع هرقيسة قفكي تجي وكشكين كلام واتج هرقيسة مقدشين واتج لو هذا جرب أنا واتج لو هذا ملبا أنا واتجي وأنا كهل الكرادي ميل قروح بدن أو جويش قروح بدن لأو شيزن أو وهرقيسة حمرنا إياه دجين كذا حكوب النادين لكن ديو مقالو وين لكن قروح ذا والله حستا هل كانوا حسي هرقيسة سي horta dhalinyarta dhanka social media haddii aan eegno Hargeysa iyo Muqdisho waxaa power ku leh Muqdisho power ku leh oo dhalinyarada aad iyo aad bay social media xoog u haystaan oo aad iyo aad bay ugu badan yihiin dhanka social media taasna dee waa la isla ogyahay Muqdisho ku awood badan oo Muqdisho cid kaga haysata xagaana ma leh labada meel marka la isku bardhigo labada magaalo marka la isku bardhigo waxba isma dheera waxa u malaysaa Muqdisho inay wax yar ka sareyso Hargeysa laakiin Hargeysa iyaduna kaftamayso Hargeysa ciyaar maaha marka Muqdisho laakiin iyada wax badan bay haysataa oo grid ah laakiin haddii noqoto dhanka quruxda waa laga haystaa waxyaabo badan waa laga haystaa adigu laakiin waxa laga qabtaa rij amniga oo kale waa laga haystaa mataqaanaa populationka iyada ku haysta dad badan social media iyada haysata marka social media awood bay ku haysataayo haddii maanta qofta social media uu rabo in social media soo galo de xamar uu joogo 2 daqiiqo ama 2 maalin 3 maalin 4 maalin buu ku soo aanbaxaya oo dadka dhan isku baraya sababtoo ah waa populationka uu dadka u haysto oo ka badan Hargeysa dadka ku nool marka labada magaalo saas hadda yihiin kala barateen oo wax badan in kala bixin barajeynaya idinkuna saaxiibayaal hadda muuqaalkan wax badan ka fahanteen inaad like iyo subscribe naga xagran barajeynaya waan idin soo dhaweynaynaa markasta waxa dhahan faniskeena waa familkeena dhahna oo kale channelkan ani kaliya ma lihi idinkuna waa ila leedihiin marka muuqaalka intaas ku soo gabagabeynaya adiga daawanaya waxa ku soo qortaa meesha joogto muuqaalkan waxa ka fahantay comment ku soo qor waa kaaga mahadcelinaya daawashadaada